walba markay milyan u dhawaadaan loo caqabadeeyaa sidoo kale waa aragteen maariisho kale tiktokeeda iyagaa heleen magacoodna ma sheegi kari masii ushi walaalkaa ku dhacda tulaha barkaad saxibadina qiimaha badan ku xirbarteena youtube-ka cabdiladi qsiyo kale facebook iyo xogteen midho waxaan maanta idin haynaa yaa jabsay youtube-kii adna channel amba adna aadan gabadhii saxaaf channel yaa jabsay youtube-keeda yaa ka dambeeyay ayaan maanta ku faraaqoyn doonaa halkan saaxiibadina qiimaha badan oo halkan waxaan kusoo daawanay muuqaalkan kusoo dhageysanay waxay ahayd Shaadi Sharaf oo uga taxsiinaysay dhibka ku dhacay adna channel balse waxaan maanta muuqaalkan doonaan ku faahfaahin doonaa ciida jabsatay iyo ciida ka dambeysay inay youtube hawada ka saaraan wacidee waase ayo taasi ayaan mawduucina ku faalan doonaa marka hore saaxiib waxaan ka codsanayaa muuqaalka like saarto una share gareyso saaxiibada kale Facebook iyo youtube ku xiran si ay u ogaano amba han u helo taageerada muhiim haysano aan ogaano saaxiibayaal youtube-keena waxa uu gaadhay 10,000 subscribe waliba saaciiday u dhaafay inkastoo xaqabada jiraan haddana haysta waxa saaxiibadeena ka codsanayna inaad youtube-keena subscribe dhac ku siisaan oo meesha casaanka hadna ka cadeysaan soo kalena page-keena xogdoon media follow iyo subscribe ta amba follow iyo like ta labadaba uga caawisan soo kale u share gareysaan saaxiibadeena kale ku xiran barteena kale ee Facebook amba saaxiibka idin kula ah baraha bulshada haddaba adna channel ayaa youtube-keeda oo ku dhawaad 640,000 oo subscribe marayay ayaa hawada laga saaray maalmo la soo dhaafay taasi oo murugo iyo waji gabax weyn ku riday adna oo ahayd ubax soo baxaya amba qof xaaskiisa iyo reerkeeda ka beeshatay barteeda youtube-ka soo kalena ah qoys faraxsan oo iyada iyo saxaaf baa lahaayeen laba youtube oo laba yar channel youtube oo hay si weyn uga soo kala jiray ila dhaqaale soo kala dhahayaan dad si weyn uga caana baraha bulshada iyagoo aan cid la aflagadan jirin soo kalena ah laba miskiin oo sida ku arki jiray inkastoo muuqaalada duuba jireenba ah laba qof oo iska afkaaban oo soo kalena dhacsada kaliya bariiskooda iyo biilkooda iskastaba haatee bartay youtube-ka waxa laga saaray hawada lamana ogo cidda weli qaadatay inkastoo ay dadaal badan la sameeyay haddana laguma guulaysan in la soo celiyo waxaase loo aaninayaa kooxda Hadhaqleyso group oo hogaamiye Daahir Calasow taasi oo inta badan lagu yaqaan inay jabsadaan youtube-da soo kalena hay si gaar ah u bartilmaameedsan dadka iyaga ka fara duwan ama dadka aan isku qabiilka ahayn wasahay hadalka u dhigeen dadkii ila waraadada soo tabiyay amba baaritaanka rasmiga ah ku sameeyay Hadhaqleyso group iyo koox kale oo iyaduna ka asaasantay Nairobi oo iyadna tuuga ah isbaastay soo kalena in TikTok badan hawada ka saaray kuwaas ayaa labadaba lagu eedeynaya balse waxa loo badinaya inay jabsadaan ay ka dambeeyaan Hadhaqleyso group waxaanu leenahay waa bil Ramadaan ciidii ka dambeysay in la jabsado masaakiintan youtube-keeda oo hawada laga saaro allaha soo qabta ayaanu leenahay garbaduub iyadoo aana ku soo celiyo ayaanu leenahay halkii ay ka jabsaday youtube-keedana allaha soo celiyo amba ilaahay ha ka siiyo bedel khayr qaba oo wanaagsan ayaan saaxiibadiina qiimaha badan ugu ducaynaa idinku u duceeya soo kalena share gareeya muuqaaladan iyo barnaamijkan Hadhaqleyso group waxa lagu yaqaanay inay jabsadaan youtube badan iyo wadad badan ka ooytay oo ku jiro xataa shan baba fanaankeenii qaaliga ahba fanaankii fanka sida weyn uga soo shacabaya dhalinyarada saaxiibayaal barnaamijka la gareeya mawduuca dambe ku falanqayn doona walba markay milyan u dhawaadaan loo caqabadeeyaa sidoo kale waa aragteen maariisho kale tiktokeeda iyagaa heleen magacoodna ma sheegi kari masii ushi walaalkaa ku dhacda gumudkeeda oo ku sugaa like anagana youtube waa leenahay ilaahay naga xoolaheedii amba channelkeeda inuu ilaahay soo celiyo